gentlemen, are you ready? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشر كين waxa uu ku saabsan yahay English Service and Professions waa luqadda Englishka shaqooyinka iyo xirfadahooga Part 4 qaybtii afraad ayaynu qaadanaynaa saddex qaybood oo hore ayaynu soo qaadanay together please aynu socono fadlan English Service and Professions waa xirfadaha iyo shaqooyinka luqadda Englishka Part 4 qaybtii afraad baynu qaadanaynaa insha Allah Number 1 teacher macallin translator turjumaan traffic waa ciidanka wadada ama askariga wadada veterinarian dhakhtarka xoolaha daweeya waiter mudalab ama kaabiyeri waitress waa gabadhii mudalabad businessman nin ganacsada ah businesswoman gabadh ganacsata ah technician farsamo yaqaan travel agent waa qof ka shaqeeya shirkadda safarada undertaker ama grave digger xabaalqode waa dadka xabaasha qoda welder ama welder waa alxaamiste ama dadka wax la xaamadeeya zookeeper waa ilaaliyaha beerta xayawaanka musician waa alxamiiste ama waa qofka garaaca kamanka iyo muusikada Andy Part 4 halka waxay noogu soo dhamaaday qaybtii afraad welcome Part 5 ku soo dhawow qaybta shanaad insha Allah